shirka jaraa'id caawa waxaan u qabtay inaan dadka reer Laascaanood iyo dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka reer dhulbaanti ee Laascaanood aan u bayaamiyo cadawga ay leeyihiin inuu badan yahay haddii Ilaahay ku roon yahay uuna koow ka yahay ninka la yiraahdo ganacsade Maxamed Cabdi Caraale oo loo yaqaan Jabuutaawi muxuu cadawga Soomaaliyeed ama Laascaanood ku noqday ninkaasi wuxuu iska dhigayaa mid dadka dan u haya mid haddii Ilaahay ku roon yahay xaaladooda iyo duruufahooda iyo dhibaatooyinkooda ka saari karaya intaaba waxa ka daran inta muraadka gaarka ah ee uu leeyahay Maxamed Jabuutaawi wuxuu sameynayaa haddii Ilaahay ku roon yahay mashruuc yar marka uu sameynayo haddii uu kuuli u baahdo boosaasu ka dirsanaya double code hadduu u baahdo engineer jaynuhu ka dirsanaya hadduu u baahdo haddii Ilaahay ku roon yahay abwaan ama hal abuur gobolada kale buu ka keensanaya kuwii Laascaanood oo jooga hadda Laascaanood kuuli waa jooga oo abwaan waa jooga oo haddii Ilaahay ku roon yahay waxa jooga engineer jooga oo kuwii solar system ka ugu horeeyay Laascaanood ka bilaabo Soomaaliya ka bilaabo khaasatan Laascaanood ka bilaabay baa jooga oo shirkadda Lesko saldhigay ee solarka u sameeyay iyadoo kuwaas oo dhan ay joogaan buu isagu dibadda ka keensanaya dadka uu lacagta ka doonayaana waa dadka uu doonayaan wax ka soo saartaana waa dadkan isaguna uma baahanayo wax laalaya wixii uu baahdo dibadda ka keensanaya markaas uu isna doonayaan inuu u baahdo oo lacagtooda iyo waxooda uu ka dhiro Maxamed Jabuutaawi waxa caawa igu kalifay inaan horta halkan soo istaago oo aan ka hadlo meeshiisa bartiisa halka yar meel uu leeyahay maqsinkiisa anoo fadhiyo waxaan arkay niman u badan dhalinyaro oo dhowr iyo 10 qof ah oo waa nimankaasi waa niman xamaaliina shaqo u dirsaday saaka alaasaydi buu shaqo xamaalnimo u dirsaday ilaahu hadaan been sheegayo aan been ka sheegayo Maxamed Jabuutaawi ilaahu waad aragtaa cadaabtan igu fogey shaqo u dirsaday wuxuu yiri war xamaal horta isu xamaala caawimo iyo wax noocaas xamaalkii saaka ay galeen bay hadda ka soo baxeen الآن ذا لعقتودي ولا يهين مكي الآن ذا لعقتودي ولا يهين ووي ما دين ور لعقتي بان نغا مقان حمالين تي بان وانا دافنيا waxa idin dirsaday u doonto war ceegaag ban wadar ceegaag waa walaalka waa ninkii mashruuca wataad u dhiibtay warna dhaafaniya ceegaagna garan meen horta magaalada u doonto waa staafkiisii baa saa u turtuuray nimankii waa niman diifaysan gaajaysan haraadsan qofka bila aadanka inuu qofka walaalkiisa ama dhigiisa uu ku taagsado maaha ilaahay hanti wuu siiyay Maxamed Jabuutaawi wuxuu u siiyayna waa inuu hantida uu siiyay uuna ku shukriyo dadkana ugu kaalmeeyo isaguna naftiisa waxa wacan uu kaga qabsado Maxamed Jabuutaawi ilaahay wuxuu leeyahay la in shakartum la asiidannakum wala in kafartum min adaabi lashadiid nimcadayda aan siiyo hadii aad ku shukridaan waa idin siyaadinaya hadii aad ku kufridaan nimcadana waa idin ka qaadaya waana idin ku cadaabaya Maxamed Jabuutaawi wadadaas uu ku socdaa nimcadii ilaahay uu siiyay buu dadka ku tag shalay toole maraan joognay meeshiisa halka baa wuxuu yiri waryahay eegaagow waxa la yiri dabarti caawimada nin baa lagu dilay baa la yiri oo hadii la dilay maxaa naga galay inaga ilaahu ma dilo shan la dilo hadaa been ka sheegay ilaahu waad aragtaa marxaatiyaal bay lahayd cad qof miskiin oo dhaawacmo xabad ku dhacday inuu ku tigtaagsado qof dhibaataysan oo duruufaysan oo gaajaysan inuu ku tigtaagsado waxaas Maxamed Jabuutaawi waa yaqaan hadaba maxaa ku kalifaya uu leeyahay koow wuxuu leeyahay hadii Ilaahay ku roon yahay wax la yiraahdo kibir aan aad iyo aad u yarayn oo weyn buu leeyahay wuxuu leeyahay hadii Ilaahay ku roon yahay wax la yiraahdo istusnimo ama dadka istusa ama dadka maaragtay maxaa sidan iyo sidan ka careless-ka ah macnaha isla de maanta cid uma baahnid cidna uma licsan oo dadka ku jisaaraya waa jisaar waa careless waa xaasid waa istus waa kibirlow ilaahayna wuxuu qofka inta in la rasuulku wuxuu qofka inta in la eeg kibira qulubtiisa ay ku jirto jannada ma galo Maxamed Jabuutaawi hadalkaygan hadii uu gaaro waxa ku qaato dooso waxa ku qaadanay waxa la qof walba qumanihiisa qoorta ugu jireen haduu saxba ku qaadanayna de waxa la yiri hadii matagaba la yiri matage walaalkii baa waaf dhaqa waxa uu xumeeyay baan anagu dareensiinayna oo uu sheeganaa inuu xumeeyay oo ummadoo dhan wax ka xumeeyay oo isleeyahay wuxuu hagaaji gurmad baatimi iyo shirkadda Lesko iyo Chochobin baatimi Chochobin waa kan waa ninka Chochobin gogolaha ku qora Chochobin gogolaha ku qora balweydiya TCBin baa la yiraahdaa balweydiya gogolaha balweydiya ninka dadkii soo dhaweynay anagu ku jirnay markii hore laakiin ninka sideen bamaan moodeen Maxamed Jabuutaawi sideen bamaan moodeen ka dhaaya nina kan wuxuu ku haystaa Chinaha meel yar oo kamid ah wuxuu ku haystaa restaurant yar oo dib qalooc iyo masaska iyo waxa maaragtay lagu cuno lagu kariyo restaurant yar buu haystaa markaas wuxuu nooga dhigay ganacsada bala ah waa ganacsada Chochobin baa lagu leeyahay anaga tagto Chochobin lahayn waxaan u sheegayaa mujtamaca reer Laascaanood iyo dadka Soomaaliyeed Lesko waxay ku jirtaa shirkadda ugu horeysay
برنامج solar system كهرجلسة جيس كأفريقيا خاصة سوماليلاند خاصة صوماليا خاصة سوماليلاند خاصة الأسعانات iyadoo awal horena waxay ku jirtay shirkadii ugu horeysay ee ugu korontada fiicnayd ee aan ka bixinaysay ee aanan tagayn ee aanan laga soo cabanayn bay ku jirtay haddaba nimco weebiin ilaahay uu ina siiyay shirkadda Lasco waana ku mahadinaya wax qabadkooda waana ku mahadinaya wariyaa wali garanaya laascaanood oo magaalooyinka qaar ku hadaa tagto 24 saacadood bad waxa arkaysaa korontada ka maqan xaafadada daaman dhan oo iska dansan boosaas oo kale waa ku arkaysaa iyaduna 5 daqiiqo waligeed korontada Lasco ma maqnaan 5 minutes marqaatiyaal baan u haystaa in 5 daqiiqo maqnaan hadda ma garatay waxaan leeyahay waxaan Jabuuti halka waxa uu isugu qaadayo waa inuu dadka masaakiinta waxooda uu hadeeru dadka ilkohoodii urkii dadka loo haysta dadka ilkohoodii imisa guriba reer baa isku furay imisu arimo qaad iyo waxa sidii ku imisa isku dilay imisu dadku baabuur ku laay imisu reer ku kala tago ku burburay imisa dad ilka uu ka soo riday sidoo qaad iyo rasaas walba ninka qaadka keenaya nafku inoo haya qaadka ninka keenaya ma nafku inoo haya niyo isagoo aanan cunaynay dadka kala siinaya waxaan oran lahaa Maxamed Cabdi Caraale Jabuutaawi umada naf iyo dan toonna uma haysid naf iyo dan toonna uma haysid ilmaadana waa istaqaan baa la yiri dul bahantanimo iyo jamacsiyaadnimo iyo waxa war islaamnimo ka dhow kugu la qaxmeen anagu sidaa dadka lugooyada ka daa hadii baa la yiri hadii la ku roon yahay Maxamed Jabuutaawi uu maanta laascaanood waxaan ku uri uu gabigeeda baday maamulkeeda uu la wareego shirkadeedii korontilaskeeda iyo dabkeeda iyo waxeeda uu la wareego hamoodina inuu naf idin hayo widi ku jisaaraya waa wallahi widi ku jisaaraya waa wallahi waa kibirlo waa wallahi waa istus waa wallahi waa beenaale waan ku dhaartay shaadkiisu waa nadiif waan ogahay shaad suub dhaqan uu xidhanaya laakiin halka qulubta waxa ma jiraan ilmaadeeradii baa gaajo tabcaan la ah iyo haraado markaas uu gaariga ugu qaalisan buu sultaan hebel baan gaari 200,000 siiyay xilliga iyo abaaraha sida lagu jiro ilmaadeeradiina odayaashii adeeradii wax dhakhtarka lagu geeyo waa la leeyahay baabuur lagu kaxeeyo waxa la yiri tiisa daryeelaa tu kale ku daradee masaajidka ugu horeeya wuxuu yiri ayaan baan soo raacnay oo waxaan ka soo raacnay masaajidku iid bay ahayd lacag baa marka la qaybinay lacag baa masaajidka laga ururinay wuxuu yiri maxaa la sameeynaa lacag